تيك توك ما استعماشا سفيعنا واستعملها dadka ugu caansan TikTok qofka sare dil ugu dhilay ka saar leed aniga haddaan isku dayo TikTok waxa macnaa aan rooga ka saar lahay oo hatta Soomaaliland ka bixi lahay socdaal ninka ay dhaayaan bismillaahir rahmaanir rahiim daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii la kulan su'aal weydii halkaad naga daawanaysaan waa channelka Samsam Suuba official aniguna waxaan ahay Saciid Samir waa tahay saaxiib markaan qofka xigay ee barnaamijkeena haddii aan soo dhaweey walaal soo dhawaad adigoo magaca ku bilaabay waa dhawaay abaayo magacaygu waa Cabbaas Xaaji Usmaan Cabbaas oo barnaamijka su'aal ay rabnaa inaan kugu weydiino diyaar ma tahay diyaar baan u ah ma sha Allah marda ugu horeysa aalad TikTok ma isticmaashaa waa isticmaalaa dadka TikTok ugu caansan hadii lagu dhihi lahaa qof TikTok ka sare ka saar leed TikTok dadka ugu caansan hadii ka saar leedahay waxaan ka saari lahaa laba qof ka saari lahaa waxaan ka saari lahaa madaxweynaha TikTok iyo Sheekh Culey sababta uu saar leed maxay tahay sababta uu saar lahaa waxay tahay abi maalin hore barnaamij TikTok waxa jiray oo qabiil iyo qabyaalista barnaamijkaas daraadiisa uu saar lahaa ما شاء الله وتكون سنتها قاب قرحان برنامجك نقول خير قاد ولا كسو دو برنامجك adigo magacaaga noogu bilaabay walaal waa dhuwaay magacay waa Aadan Xasan oo su'aal ay rabnaa inaan ku weydiino diyaar ma tahay inaad ka jawaabto diyaar baan u ahay mid ugu horeysa aalad TikTok ma isticmaashaa waa isticmaalaa si fiican maasha dadka ugu caansan TikTok ka saar lagu dhihi lahaa ka saar leed aan ka saar lahaa daayira cali suud sababta ugu saar leed maxay tahay waxa weey qabyaalista ugu weyn oo baraha bulshada isticmaalo oo dadka isku daro walaal soo dhaw adigoo ku bilaabay magacaaga waa ku dhawaay magacaygu Cabdiqadar Xasan Cabdullaah hagaag Cabdiqadar oo su'aasha ugu horeysa ku weydiinaan waxay noqon doontaa TikTok ma isticmaashaa aad weey dadka ugu caansan TikTok qofka sare lagu dhihi lahaa ka saar leed yu kaar la ka saar lahaa sababta ugu saar leed maxay tahay qabyaaladu naftu nooga qaadaa waxa waaye maalinkii la arkay qabyaalad buu nala hortaagaya marka anagana dhalinyarada nahay waa ka saar lahayn waliba forfait waa ka tuur lahayn waliba hadaa go'aankiisa aan gacantana ku jir lahaa walaal waxaad ku soo dhawaataa barnaamijkii la kulan su'aal weydii adigoo ku bilaabay magacaaga waa dhawahay abaayada u mahadsan tahay magacaygu waa Ciise Cusmaan Aadan ما شاء الله سؤالشان ku weydiinayna waxaan noqon doontaa TikTok horta ma isticmaashaa aad iyo aad si fiican dadka ugu caansan TikTok qofka sare hadii lagu dhihi lahaa ka saar leed wallahi TikTok aalada TikTok dadka ugu caansan hadii qof ka saaran waxa ka saarnaa kulli Sheekh Culey ka saar lahaani sababta ugu saar leed maxay tahay sababta uu saarayo kulli ninka anshaxmo iyo waxyaalo badan oo soo bandhigay iyo qabyaaladii wuxuu ka hadlaa qabiil uu sameeyay qabiilo ka hadlaa dadka qabiilo ka hadlaa waa nin oday aad u anshax dareeno anshaxba u saaraaday ayood ma santa walaalkay qaab walaal ku soo dhaw barnaamijka la kulan su'aal weydii adigoo ku bilaabay magacaaga magacaygu waa Xasan Xuseen Cabdullaahi oo ku magac dheer Xasan Daacad Xasan oo aalad TikTok ma isticmaashaa waa isticmaalaa TikTok dadka ugu caansan qofka sare lagu dhihi lahaa ka saar leed waxa ka saar lahaa Miss Wall sababta ugu saar leed maxay tahay qoftaas ma bakeelin dhaqankeedii waxaas iga cun waa infant waad ku maasantahay walaal waxaad ku soo dhawaataa barnaamijkii la kulan su'aal weydii adigoo ku bilaabay magacaaga ما شاء الله وكل واحد مقعي وشريف يعني شريف وتيك ما استعماشا سفيعنا واستعملها dadka ugu caansan TikTok qofka sare lagu dhilay ka saar leed aniga haddaan isku dayo TikTok waxa macnaa aan rooga ka saar lahay oo hatta Soomaaliland ka bixi lahay socdaal ninka ay dhaayaan waad ku maasantahay qaab qurxoon barnaamijka waxaad ku soo dhawaataa barnaamijkii la kulan su'aal weydii adigoo ku bilaabay magacaaga magacaygu waa Cabdijiib Cabdullaah Xasan wala Cabdijiib aalad TikTok ma isticmaashaa waa isticmaalaa dadka TikTok ugu caansan qofka sare lagu dhilay ka saar leed wallahi ana waxa ka saar lahay gabadha misool ay ugu qorantaa sababta maxay tahay koos waxyaabo soo gudbinayso waxyaabo fiican ma waad ku maasantahay qaabka barnaamijka nool khab walaal waxaad ku soo dhawaataa barnaamijkii la kulan su'aal weydii adigoo ku bilaabay magacaaga magacaygu waa Saciid Adhawa walaashay aalad TikTok ma isticmaashaa exactly dadka TikTok ugu caansan qof ka sare lagu dhihi lahaa ka saar leed laksar qof ka saar lagu dhihi lahaa TikTok maano wallahi TikTok dad badan jira laakiin waxaan ka saar lahaa kuwan canab sababta ugu saar leed maxay tahay TikTok waxa loogu talagalay maano barnaamijka shacabka lagu soo gudbiyo laakiin maalmahan dambe iyada fadeexadada badneed ku soo dhawaataa barnaamijkii la kulan su'aal weydii adigoo ku bilaabay magacaaga magacay Maxamed Deeq baa la yiraahdaa Maxamed Deeq aalad TikTok ma isticmaashaa dadka TikTok ugu caansan hadii lagu dhihi lahaa qofka sare ka saar leed ani habi jesse ya taageeranayo yaa ka saar leed yaa ka saari leeda ani waxa ka saari lahaa aniyo ishe Miss Wall ka saari lahaa sababta maxay tahay waxa qaabanayso digdaano ayaad ku maasantahay
walaal waxaad ku soo dhawaataa barnaamijkii la kulan su'aal weydi adigoo ku bilaabay magacaaga بسم الله مقعي وعبد الرحمن علي سوي ala tiktok ma isticmaashaa سيفي أنا haddii lagu dhihi lahaa dadka tiktok ugu caansan qofka sare ka saar leed waxaan ka saari lahaa kuwiin qaadan sababtaad ugu saar leed maxay tahay waxaan ku saari lahaa fiidiyooyo anshax xumee soo gelisay kaliya oo loo riyaaqay waa taa walaalkii waa kaaga mahadnaqaynaa dhawaataa barnaamijkii la kulan su'aal weydi adigoo ku bilaabay magacaaga magacaygu waa xasan cabdulle maxamuud miskiinka tiktok ma isticmaashaa nacam tiktok dadka ugu caansan qofka sare haddii lagu dhihi lahaa ugu saar leed shiino culiyaa ka saari lahaa shiino culey sababtaad ugu saar leed maxay tahay waxaa waaye go'aanku aad ugu liitaa waxaa waaye qofku waxaa la rabaa rag hadduu yahay qofku wuxuu ku wada ballantay inaa ballanku u baxdo looma baahna maho marka shiino culey nin ragoo ku dhuuriyaa leeyahay marka saasaa ugu saari lahaa ayaa waad mahadsan tahay walaal waxaad ku soo dhawaataa barnaamijkii la kulan su'aal weydii adigoo ku bilaabay magacaaga Sheekh Maxamed Xuseen bashiiro ala tiktok ma isticmaashaa dadka tiktok ugu caansan dii lagu dhihi lahaa qofka sare ka saar leed waxay sababtaad ugu saar leed maxay tahay markasta way basirsiiyaan waad ku mahadsan tahay qaab qurxoon barnaamijka nagala qayb qaad walaal waxaad ku soo dhawaataa barnaamijkii la kulan su'aal weydii adigoo ku bilaabay magacaaga اوكي magacaygu waa Muuse Shacib Aadan Cabdulle maasha Allah ala tiktok ma isticmaashaa aad iyo aad waa isticmaalaa TikTok dadka tiktok ugu caansan qofka sare haddii lagu dhihi lahaa ka saar leed waxaan ka saari lahaa Nayrus baa ka saari lahaa Nayrus sababta ugu saar leed maxay tahay waa nacayno ninkadeeda ay ugu badan waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka la kulan su'aal weydii adigoo ku bilaabay magacaaga horta oo ku dhawaay barnaamijka magacayga waa Samiir oo ku magac dheer Samiir leeyahay magac dheer ama fahant su'aasha soo dhawaad tiktok ma isticmaashaa waa fiirsaa laakiin ma isticmaalani waa dadka tiktok ugu caansan haddii lagu dhihi lahaa qofka sare ka saar leed TikTok mise su'aala ka saar lahayn number 2 sababtaad ugu saar leed maxay tahay shaydaamad waay walaal waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka la kulan su'aal weydii adigoo ku bilaabay magacaaga magacaygu waa cabdiqani xuseen xamed oo ku dhawaad cabdiqani oo tiktok ma isticmaashaa haddii lagu dhihi lahaa dadka tiktok ugu caansan qofka sare ka saar leed waxaa ka saari lahaa socdaal sababta maxay tahay sababtoo waa nin oo tiktok iskaga dhedheelaya waa hagaag waad ku mahadsan tahay qaab walaal waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka la kulan su'aal weydii adigoo ku bilaabay magacaaga aad u mahadsantahay magacayga Daawud Axmed Cabdi daawudo tiktok ma isticmaashaa aad iyo aad mar dhow ku soo biiray haddii lagu dhihi lahaa dadka tiktok ugu caansan qofka sare ka saar leed wallahi waxaa ka saari lahaa Shiino Culi iyo Kabtan Ayuub sababta maxay tahay dad caafimaad qaba ma haba caafimaad ahaan mar dhamma isla yani ahaan sababtoo ah baaquli madax gashanaa dii wana baaquli madax gashanaa marka waxa waaye oo aan sal iyo raad toona kuma lahan baraat tiktok waxaa loogu talagalay in lagu soo gudbiyo waxyaabo wanaagsan laakiin in dhalinyarada si qaab daran looga turjumo maaha waad ku mahadsan tahay walaalkay qaab qurxoon barnaamij walaal waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka la kulan su'aal weydii adigoo ku bilaabay magacaaga tiktok ma isticmaashaa haddii lagu dhihi lahaa dadka tiktok ugu caansan qofka sare ka saar leed kuwii canab sababta maxay tahay laan kas waxoo fiican soo dhigay Soomaa la kulan su'aal weydii adigoo ku bilaabay magacaaga wala salaam magacayga waa Umar Muuse Maxamed oo ku magac dheer ana Umar tiktok ma isticmaashaa aad iyo aad waa ku badana haddii lagu dhihi lahaa dadka tiktok ugu caansan qofka sare ka saar leed TikTok والله waxaa atirishay bisawirka saarlaa wallahi waxa waay aad iyo aad itisha badan ay qaadatay oo mudnay inta badan sababta maxay tahay waxa laga maanta TikTok gabdhaha fiirsana waa gabdho yar yar oo qof ku daysadaan laakiin misoo qof u daysado ma waxa jeclaan in meesha kale laga saaro waan kaaga mahadnaqaynaa qaabka barnaamijka walaal waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka la kulan su'aal weydii adigoo ku bilaabay magacaaga waa ku dhawahay magacayga Ruwayda waaye Ruwayda Mukhtaar Ruwayda TikTok ma isticmaashaa waa haddii lagu dhihi lahaa dadka tiktok ugu caansan qofka sare ka saar leed mise walaa ka saar lahaa sababta maxay tahay sababtoo wax asha xumaa ku dhaqantay waad ku mahadsan tahay qaabka barnaamijka nagala qayb qaad ku soo dhawaataa barnaamijkii la kulan su'aal weydii adigoo ku bilaabay magacaaga walaal waa dhawahay magacayga waa Farxiyo Cabdi Cali farxiyo tiktok ma isticmaashaa si wanaagsan dadka tiktok ugu caansan haddii lagu dhihi lahaa qofka sare ka saar leed horta gabadhii magaceed maxay ahayd horta kuwii carab baan leeyahay haddii yani oo been laga sheegaan waxaa ilaa hawaarto haddii run laga sheegaan ha yaacdo waa sababta maxay tahay waayo waxa la sheegay waxa aan arkay fiidiyowga aan arkay la'alligeeda waan ceebeynaysaa micnaha aad ku mahadsan tahay qaabka barnaamijka walaal waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka la kulan su'aal weydii adigoo ku bilaabay magacaaga anigu waa Cabdishakuur Cabdullaahi Maxamed degmada Dharkale degan tiktok ma isticmaashaa nacam haa haddii lagu dhihi lahaa dadka tiktok ugu caansan qofka sare ka saar leed cilmi baabije sababta maxay tahay waa aan shaxtare ku soo galay TikTok waad ku mahadsan tahay qaabka barnaamijka
واتاي صاحبي هل انت سيون كسو افميرنا برنامجكي la kulan su'aal weydii halkaad kala socoteen waa Zamzam Suuba official anigu waxaan ahay Siciid Samir saaxiibada wixii aragtay waxaad nagu reebi kartaan commentiga share iyo like iyo subscribe tana channelka halaga ilaabin